بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. bulshada kala duwan hortayda iyo geesahayga fadhisa oo maamulka degmada, culimo awdiinka, ciidanka mujaahidiinta qaybihiisa meeshan ku sugan, odayaasha iyo inta kale oo faraha badan oo mikrofoonka iga maqlaysa, dhalinyarada, ganacsatada iyo wixii la mid ah, salaamta islaamkan ku salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xafladdan sida la tilmaamay amase goobta aanu joogno laysumaadka la isugu yimid waa masaajidkii jaamica ah oo degmada Baxdo qaybihiisa qayb ka mid ah. laba arrimood inay ku xusan tahay ayaa la tilmaamay. mid oo ah inay qayb ka mid tahay xafladihii tirada badnaa oo lowla lagu jiro bishii nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam caalamka islaamka ka dhacayay iyo caalamka kala duwan, kuwo badan oo ka mid ah degmadan ay ka soo dhaceen gudaheeda, bal masjidkanba qaarkood aan ku qabannay inay xaflad ka mid tahay. taasoo waxaa la yidhi si gooniya ay u maamuuseen una samaysteen ciidamada degmada Baxda ku sugan ee mujaahidiinta ah oo wax badan soo dagaalamay, haddana sidii qalabka u sitaa ayaa la tilmaamay. labada arrimood inay ka kooban tahay, maamuuskeedu iyo lafdhabarkeedu uu yahay ixtifaalkaas inay qayb ka tahay, ayna u yahay qayb ay soo qaban qaabiyeen ciidamadu. taasaa xudunkeedu iyo lafdhabarkeedu yahay iyo maamuuskeedu. marka koobaad allah ayaanu mahad celinaynaa. haddaan nahay reer Baxdo na siiyey nicmooyin fara badan, noo qadaray inaan iska guulaysanno, ka xorowno cadowga khawaarijta, arxanlaawayaasha, argagixisada iyo magacyada foosha xun oo badan oo la mida leh. mahadoo dhan ilaahay baa iska leh. ma lihin waxaan ku gaarnay guusha aanu gaarnay dadnimo aan leenahay, ninkarmeednimo aan leenahay, awood aan leenahay, intaa midna sheegan mayno. waxaan leenahay waxaan nahay dad masaakiina oo ilaahay u kaalmeeyey, ilaahay ceebtooda asturay, ilaahay cadowgooda ka guuleeyey, ilaahay u qadaray inaan la gumaysan, xorriyad iyo damaashaadna ay ku noolaadaan. ilaahaan uga mahad celinaynaa kun iyo kow jeer. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa cid kasta oo nagu garab istaagtay jihaadkaas iyo dagaalkaas, iyo cid kasta oon ku midownay ama aan ku walaalownay. waxaan u mahad celinaynaa madaxda Soomaaliya, madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha galmudug labadaba, cilaaminta ay cilaamiyeen in la dagaalamo shabaab, dadaalka ay ku bixiyeen iyo xoraynta laga xoreeyey degmooyin muddo badan gumaysi ku jiray oo meelo badana qaarkood galmudug ku yaaliin, sida Xaradheere, sida Ceeldheer iyo meelo la mida. waa ku mahadsan yihiin madaxduna iyo taageeradii iyo garab istaaggii annaga ay noo muujiyeen intaba.
ومدحوينها قلمدوغنا مركز سبا ونلا تاغنا كان فدرالكuna asagoo lugiisa ku socda baxda uu soo istaagay aad iyo aad uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay meeshan khawaarijta in la dagaalamo waa lama huraan waa lagama maarmaan waa ku dhaqanka shariicada islaamka waa badbaadinta dadnimada iyo maslaxada Soomaaliya iyo caalamka oo dhanba nabigeena calayhi salaatu wasalaam حديث صحيح واكي كيري فإنما لقيتم فاقتلوهم مركا الله كلانتان لا دغالما اما ميشاد كلا كلانتان كلا دغالما فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم دغالك لا دغالما خواريستا أجر أيي كهليسا عيد لا دغالنتا ودغال أجر لغا هلو ودغال عبادة ودغال جنة لوgu tago maxaa yeelay waa fasaad waa musiibo maslaxada diineed iyo mid adduunyada qatar ku ah midna aysan ka badbaadaynin waana mid nabigu sida uu leeyahay haddaan reer baxdanahay ama ciidankiinan qayb kamid ah hadda ay hor fadhiyaan qayb kale laga yaabo mikrofoonka inaga maqlaayaan kuwa kale hawlo kale ay noo hayaan inaan qawaarij wax isaga sheegno maanta kow nooma ahan waa ka dharagsannahay waxay tahay waan naqaan ficilkeeda waan naqaan dhaqankeeda waan naqaan shariicada islaamka xukunka ay ka qabtana waan naqaan bal Soomaaliya oo dhan qof maanta ilaa laad uga jiraa ma jiro waa la cadeeyay xukunkooda horaa loo cadeeyay dibaa loo cadeeyay jamaaca loo cadeeyay mid loo cadeeyay iyo waxa iyagu ay yihiin waxaan isu dardaarmaynaa midnimo waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed iyo anaga reer baxda intaba in la midooba waa lama huraan in la midooba waa lama huraan madaxweynaha noogu sarreeya federaalka kan maamul goboleedka laga hoos lagu yimaado gudoomiyaha tuulada inaan midowno dawladdeena garab istaagno ka amar qaadanno adeecno la taageero ayaa waajib nagu ah macna qof kasta oo raba in ummaddu kala tagto isqilaafto dawladda laga hor yimaado dadku kala jeestaan waa qof raba masaalixda ummadda inuu burburiyo baabi'iyo wa taawanu 'ala al-birri wa taqwa ay ilaahayna leeyahay waxyaalaha wanaaga iyo macaasi iskaalinta isu kaalmaysta marka midnimada isu dardaarmayna annagu dhexdeen aan midowno haddaan reer baxdanahay waan la midaysanaa dawladdeena maamul goboleedka maamulkeena kan maamul goboleedka iyo dawladdeena federaalka intaba waxaan aad ula midaysanaa isugu fiicannahay hay'adaha kala duwan ee ciidanka dawladda ciidanka midkii aan dawli ahayn iyo midkii dawladu hay'ad dawlad ka tirsan dhamaantood waxa madaxweyne u wada ah madaxweynaha gobolka midka federaalka dhamaantood waa dad iyo dawladdiis marka kala amar qaadashada is ixtiraamka isku xiraashada ayaan aad u dardaarmaynaa waa midda nabigeenu dardaarmi jiray calayhi salaatu wasalaam waa midda quraanka ilaahay ku ammaanay qoomkii saxaabadu la rika annahum bunyaanun marsuusun sida dhagax isku dhisan oo kale isugu xiran yihiin kala dambeynta iyo nidaamka ciidan ayaa tihiin waa inaad aad u hagaajisaan la shaqaynta ciidamada kala duwan ee hay'adda dawliga ah sida quruxda badan oo ula shaqeyn jirteen xiriirkiin u wanaagsan yahay ama haddaan reer baxdana dhammaan u wanaagsan yahay waa inaad ka amar qaadataan taliyaashiina ciidanku nidaam uu leeyahay qorshe uu leeyahay taliyuu leeyahay nidaam kala dambeeyuu leeyahay marka in la is adeeco la kala dambeeyo ayaa lama horana shariicada islaamkuna ayadeen amraysa adduunka cadow lagu lama dagaalamo qof dawladdiisa ka soo horjeeda iyo maamulkiisa cadow iskama dhiciyo من الدفاع يقان